su'aashu waxay ku saabsan tahay ninkii iyo xaaskiisii ayaa safar ku sugnaa iyagoo socdaaloo safar ku sugan ramadaanna ay tahay ayay isu tageen kafaara ma ku waajibaysaa jawaabtu waxay tahay haddii safarkani aanu ahayn mid xeelad looga jeeday haddaanu ahayn ilaahay lama khiyaameeyo mid xeelad looga jeeday haddaanu ahayn safar bannaynaya rukhsada in lagu qaatana uu yahay wax dhibi ma saarna waa cuni karaan waa cabbi karaan waa isu tegi karaan laakiin safarkaasi mid rukhsada lagu qaadanayo haddii aanu ahayn oo ama xadkii rukhsada lagu qaadanayay aanu gaadhsiisnayn waxaabuu aaminsan yahay qofkani masaafa mucayana in waxa weeye rukhsadaasi ka imanayso oo masaafatulqasri la yidhaahdo wixii ka yara ayna ka imanayn marba hadduu sidaa u qabo qadarkii haddaanu gaadhin dee rukhsadii ka imanayso wakada waxaa la mida haddii safaru macsiya uu yahay marka lagu socdo qowlka odhanaya safarka waxaa loo shartiyaa inuu yahay safar bannaan ama taaca ama mubaaxa calaa kulli xaal safarkaasi hadduu yahay safar rukhsada in lagu qaataa ay bannaan tahay xeeladna aan looga jeedin soonka la doonaayo in layskaga rido oo tarakhus liajli tarakhus baa loo safray rukhsad doonad oo la leeyahay ramadaan baa soo gashaye ma kala maarannee aroos baynu ahayne aan wada safarno saynu hawsheenni isaga sii wadanno waxaa la odhanayaa markaa waxa loo safrayba hadday tahay in soonka layska ridaayo taasi u bannaanaan mayso xaaraan bay ka noqonaysaa waxay noqonaysaa dembi kabaa'ira inay ku dhaceen oo xambaarteen bay noqonaysaa wallahu aclam